بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما السبتية أو أي أحد سوق ليسو سيديد يا لباتنك بشا فبراير سنة كالبكون لباتن يلح أو كوبهجن كوب يتبنك بشا رمضان سنة كن أفر بقول فرتن يتضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي قبانها قضبضا عاو برامج كان آن إذن كوها إنانا وحا كامدا نتنياهو iyo saraakiisha kale ee Israa'iil oo sheeganaya in la dilay hogaamiyihii sare ee Iiraan wasiirkii gaashaandhigga taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga iyo saraakiil kale oo muhiim ah laakiin warkaasi war ka duwan ayaa ka soo baxaya dhanka Iiraan waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani Iiraan oo xilligan duqeynaysa Qatar iyo Israa'iil magaalada Tel Aviv bartamaheeda ayaa gantaal ay ku soo dhaceen sidoo kale nidaamyada difaaca hawada ayaa waxa ay la xarbinayaan gantaalada dhanka Iiraan ka imaanaya Iiraan waxay uga digtay dadka ku dhaqan wadamada khaliijka inay ka fogaadaan goobaha ciidamada Mareykanku ay degan yihiin waxay kaloo Iiraan sheegtay in ay beegsatay xarumo sir oo ay leeyihiin sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo kuwa Mareykanka wasiiradii Israa'iil ee sarsare oo caaway loo raray goobo difaac oo dhulka hoostiisa cabsi darteed taliska dhexe ciidanka Mareykanka oo isna sheegay inuu fashiliyay boqolaal weerar ah oo Iiraan ay soo qaaday xogayaha golaha ammaanka qaranka ee Iiraan Ali Larijani oo digniintii ugu dambeysay jeediyay dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka dhawaada markala daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wararka soo dhacaya waxa kamid ah magaalada Tel Aviv oo xilligan qiic iyo uuro iyo holac uu ka baxayo kadib markii mid kamid ah gantaalada gordhawto ku dhacay warkaas waa idin faahfaahin doonaa iyo wararka degdega ah ee soo dhacaya laakiin waxaynu ka hormaraynaa wakaaladda wararka ee Maahir ee laga leeyahay wadanka Iiraan ayaa waxay ka soo xigtay ila xogaal ah in taliska sare ee ciidanka Iiraan ay uga digeen dadka ku dhaqan wadamada khaliijka inay ka fogaadaan goobaha ay degan yihiin ciidamada militariga ee Mareykanka sidoo kale waxay sheegtay wakaaladda wararka ee Maahir in Iiraan ay qaaday wareeg cusub oo weerar ah waxaana lagu beegsaday weeraradii ugu dambeeyay xarumo sir oo ay leeyihiin sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo kuwa ciidamada Mareykanka dhanka Ciraaq waxa hadda soo dhacay war sheegaya in xoogaga iska caabinta ee Shiicada ay ku dhawaaqeen in ay bilaabeen fulinta howlgallo dhowr ah oo ka dhan ah saldhigyada militariga waxaana ay sheegeen weeraradaasi inay wadaan Mareykanku dhankooda waxay sheegeen weeraradii ay ku qaadeen Iiraan inta badan in loo adeegsaday gantaalada Tomahawk ka yiraahdo telefishinka CBS ee laga leeyahay wadankaasi Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay saraakiil Mareykan ah oo sheegaya in militariga Mareykanku ay adeegsadeen gantaaladan iyo diyaarado drones ah si ay u curyaamiyaan difaaca cirka ee wadanka Iiraan wararka qaarkood waxay sheegayaan diyaaradaha droneska ee Mareykanku ay adeegsadeen in ay ka mid yihiin diyaaradaha shahiid oo limin guuriyay oo naqshada laga xaday Iiraan sidaasna Mareykanku ay ku bilaabeen inay adeegsadaan diyaaradahaasi waxaana leeyahay diyaaradahani waa diyaarado aan soo laaban loogu talagalay inay hal mar meel ku qarxaan ciidanka Israa'iil dhankooda waxay sheegeen in ay beegsadeen 3 goobood oo mas'uuliyiin Iiraaniyiin ay ku sugnaayeen telefishinka NBC ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay sarkaal military oo Israa'iili ah oo sheegaya in goobaha la beegsaday ay ka mid yihiin 3 xarumood oo muhiim ah oo kulan ay ku lahaayeen mas'uuliyiin sarsare oo Iiraaniyiin ah taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka isna waxa uu sheegay in uu fashiliyay boqolaal weerar ah oo dhanka Iiraan ka yimid waxaana la sheegay in loo adeegsaday gantaalo diyaaradaha droneska waxay sheegeen in qasaaraha xarumaha uu yahay mid xadidan oo aan saameyn ku yeelan howlgallada isla markaasna bartilmaameedyada gudaha Iiraan oo ay ku jiraan goobaha IRGC waa ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga
iyo difaaca cirka ay wadaan waxaana ay sheegeen in ilaa hadda ciidanka Mareykanka aysan soo gaarin wax khasaaran nafeed ah wahagaag dhanka xuutiga warba laga sugayay waxaa soo hadlay goor dhaweeto hogaamiyaha sare ee xuutiyiinta Cabdimaalig al-Xuuti wuxuu muujiyay inay garab istaag u muujinayaan dadka reer Iiraan isagoo sheegaya inay qaadi doonaan tillaabooyin kala duwan iyadoo loo diyaar garoobayo xaaladaha soo socda Cabdimaalig al-Xuuti ma aanu sheegin tillaabooyinka ay qaadi doonaan wahagaag telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay wuxuu hadda tibinayaa in wadahadal goor dhaweeto qadka telefoonka ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ugu dambeeyay xaaladan socota dhinaca kale waxa leeyahay labada nin markii ay ku kulmeen Washington ayaa la dejiyay wadahadaladan waxaana wararka sidoo kale kamid ah oo Mareykanku ay qiranayaan in Iiraan wadahadaladii ugu dambeeyay iyo wada xaajoodyadii ay ahaayeen khiyaano oo markaasi loogu talagalay weerarkan in la qaado wahagaag afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa wuxuu u xaqiijiyay telefishinka la yiraahdo NBC in hogaamiyaha sare iyo madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ay caafimaad qabaan dhinaca kale telefishinka Sky News ayaa waxa uu sheegayaa in weerarkii ugu dambeeyay lagu dilay dhowr taliye oo kamid ah taliyaasha ciidanka Iiraan waanu imaan doonaa Netanyahu oo hadlay iyo Trump oo isna war soo saaray iyo warar la xiriira sheegashada Israa'iil sheeganayso in la dilay hogaamiyaha sare ee Iiraan laakiin gobolka waxaa ka soo yeeraya warar kala duwan oo falcelina madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay weerarada lagu qaaday waddanka Iiraan oo sheegay in lagu xadgudbay madaxbannaanida sidoo kale wuxuu sheegay in aan la aqbali karin weerarada kale ee lagu qaaday dalalka Khaliijka isagoo ku baaqay dhammaan dhinacyadu inay ka shaqeeyaan joojinta dhiigga qubanaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkaasi jeediyay Netanyahu ayaa isna waxa uu sheegayaa in kalsooni ay ku qabaan isla markaasna calaamadaha muuqda ay muujinayaan in uusan noolayn hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei wuxuu sheegay inay jiraan cadeymo isa soo taraya oo muujinaya in uu geeriyooday Ali Khamenei wuxuu sidoo kale sheegay in iskaashiga Mareykanka iyo Israa'iil uu yahay mid dhow hawlgaladuna ay sii socon doonaan isagoo ugu baaqay shacabka Iiraan inay afgambiyaan nidaamka dabcan qobarada waxa arrimahaas ka leedahna waanu imaan doonaa laakiin waxaa war soo tuuray xafiiska hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei xafiiska ayaa bayaan uu soo saaray oo loo gudbiyay telefishinka Al Jazeera waxa lagu yiri cadawga Mareykanka iyo Sahyuuniyadda waa sida bayaanka lagu yiri waxay adeegsanayaan dagaal maskaxeed isla markaasna waxa loo baahan yahay feejignaan arrintan ma waxay u muuqataa in looga jawaabayo wararka la xiriira in la dilay hogaamiyaha sare ee waddankaasi Iiraan Ali Khamenei mas'uul sare oo Israa'iili ah ayaa waxa uu sheegay in la dilay Ali Khamenei sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee Reuters wakaaladdu sidoo kale waxay soo xigatay mas'uul Israa'iili ah oo sheegaya in meydka Khamenei la helay telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa xaqiijiyay in la dilay Ali Khamenei isla markaasna meydkiisa laga soo saaray burburka xaruntiisii warbixintu waxay intaasi ku dartay in dukumiintiyo cadeynaya meydka Khamenei loo gudbiyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu safiirka Israa'iil ee Mareykanka Yair Lapid ayaa sidoo kale u sheegay saraakiil ku sugan Washington in Khamenei la qaarajiyay sida ay sheegayso shabakadda Axios ee laga leeyahay Mareykanka arrintani waxay timid kadib markii Netanyahu goor dhawito uu sheegay in hogaamiyaha sare ee Ali Khamenei uu samardaba sii noolaan dirin isagoo ku tilmaamay guul laga gaaray hawlgalkii lagu baagsaday hogaamiyaha sare khudbad uu jeediyay Netanyahu ayaa waxa markaasi uu muujiyay in ay jiraan cadeymo isa soo taraya oo la xiriira dilka hogaamiyaha sare waa tahay dhinaca Iiraan aynu eegno oo war culus sidoo kale ka soo yeeray goor dhaweyto xogayaha golaha ammaanka qaranka ee waddanka Iiraan Ali Larijani ayaa sheegay in sida hadalku yiri Sahyuuniyadda iyo Mareykanku ay ka shaqayn doonaan ficiladooda isagoo intaasi ku daray in ciidamada Iiraan ay bari doonaan cadawga 10 aan laga soo waaqsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna hadda
ayaa isna hadlay intaynu barnaamijka ku jirnay. Trump ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu hayo xog wanaagsan oo ku saabsan hoggaanka cusub iyo hogaamiyaha cusub ee Iran kadib weerarada military ee lagu qaaday dalkaasi. Waraysi uu siiyey telefishinka ABC News, Trump wuxuu muujiyey rajo wanaagsan oo ku saabsan weerarka wadajirka ah ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran, isagoo sheegaya in howlgalku uu u socdo si wanaagsan isla markaasina uu gaarayo ujeedooyinka la qorsheeyay. Trump ayaa sidoo kale sheegay in weerarada ka dhanka Iran ay sii socon doonaan inta ay doonaan, isagoo xusay in duqeymahaasi ay sababi doonaan khasaare culus isla markaasina si buuxda loo curyaamin doono dhaqdhaqaaqa Iran, wuxuuna ku sheegay taas inay tahay waxa ay doonayeen. wuxuu intaasi ku daray in hogaamiyaal badan oo reer Iran ah lagu dilay weerarada, inkastoo uu sheegay ilaa iyo hadda faahfaahin ma uusan bixin. Trump ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in Mareykanku uu fahamsan yahay in la dilay Ali Khamenei, laakiin warkii doon baa soo baxay. Intaynu hadda war wadnay wakaaladda wararka intaynu warkan ku jirnay, wakaaladda wararka Maahir ee laga leeyahay Iran ayaa waxay soo tuurtay war ay ku sheegayso in hogaamiyaha sare uu ku sugan yahay qolka hagidda dagaalka isla markaasna dagaalka uu halkaasi ka hogaaminayo. waa tahay waxa isagana goor dhaweyto shir jiraad qabtay afayeenka ciidamada Israa'iil Eva Devrin, wuxuu ku dhawaaqay in la xaqiijiyey geerida Ali Shamkhani oo ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee hogaamiyaha sare ee Iran Ali Khamenei kadib weerar military oo Israa'iil ka fulisay gudaha Iran. Afayeenku wuxuu sidoo kale sheegay in la dilay madaxii xafiiska Khamenei iyo tiro kale oo hogaamiyaal ah oo Iiraaniyiin ah, waxaana ka mid ah taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga, wasiirka gaashaandhigga ee Iran. Sida uu sheegay waxaa kaloo la beegsaday xarumo kala duwan, wuxuuna tilmaamay in dadka tooska loo beegsaday oo ka mid yahay Ali Shamkhani. ciidanka Israa'iil waxay ku andacoodeen in ay fuliyeen 500 oo weerar oo ay ka fuliyeen gudaha Iran. Afayeenku wuxuu xusay in iskaashiga military u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka uu gaaray heer aan horey loo arag. Sidoo kale wuxuu sheegay in Iran ay sii waday dayactirka iyo dibudhiska barnaamijkeeda nuclearka, isagoo intaasi ku daray in maalmo adag weli ay soo socdaan loona baahan yahay midnimo iyo feejignaan. Afayeenka ciidanka Israa'iil waxa uu sheegay in howlgalka military ka socda Iran uu sii socon doono ilaa laga gaaro ujeedooyinka la dejiyey iyo in la tirtiro sida hadalku u dhigay qataraha jira. wuxuu sidoo kale ugu digay shacabka in aan la sawirin goobaha ay gantaalada Iran ku dhaceen, isagoo xusay in Israa'iil ay si xoogan uga jawaabi doonto weerar kasta maadaama ay ku jirto sida uu yiri dagaal ka socda dhowr jiho. wahagaag haddaba intaynu warkan ku jirnay war degdeg ayaa hadda soo dhacay. waxaa la sheegayaa ceel ka mid ah ceelasha shidaalka ee Israa'iil ee badda ku yaal kuna dhow marinka Gaza in dab uu ka qaxmay xilligan kadib markii la duqeeyay. Tel Aviv war baa ka soo kordhay duqeynta hadda ku dhacday Israa'iil. hay-adda warbaahinta Israa'iil waxay leedahay 6 qof ayaa ku dhaawacmay goor dhaweyto gantaal ku soo dhacay bartamaha magaalada Tel Aviv. sidoo kale duqeymo culus ayaa waxaa laga soo warinayaa magaalada Dooxa ee wadanka Qatar. dhinaca kale war sidoo kale hadda naga soo gaaray Tel Aviv wuxuu sheegayaa dhismo dhan inuu dumay gebi ahaanba. waxaana leeyahay dad ayaa ku hoos jira dhismahaasi, waxaana la aaminsan yahay gantaal Iiraaniyiintu ay rideen inuu ku dhacay dhismahaasi. waxaa kaloo wararka sidoo kale ka mid ah sida hadda aynu arkayno muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada, kooxaha gurmadka degdega ee Tel Aviv ayaa waxay ku sugan yihiin goobta qaraxa oo ka dhacay, iyadoo markaasna lagu soo waramayo in dadkaasi loo gurmanayo. waxaan la arkayaa kooxaha dildamiska iyo kuwa kale ee gurmadka caafimaadka oo ku sugan bartamaha magaalada Tel Aviv. gantaalada Iran ayaa waxaa la sheegayaa qaarkood inay ka soo gudbeen nidaamyada difaaca Mareykanka iyo weliba Israa'iil. xaaladdanna waxay noqon kartaa sida wararku ay sheegayaan mid wax ka bedeli karta jihada dagaalku u socdo. Iran waxaynu ognahay maanta inay adeegsatay gantaalkan waxa lagu magacaabaa sawirkiisa aad arkaysaan Sajiil baa la yiraahdaa. waa gantaal sidaad arkaysaan raadkiisa wujuurjiiroonaya